وحالي رورتا قبلها ويكحنا قيان لبدي سدحله بس كفطر طبيعي يعني حناقان لكن الله نحرسته شعور فاروق باشا كذا سوق بقبي الله قبل هذه سجع ضاد لا قبتي تلفزيون اللي جالس يدعي نراه لا جورسني بيكذب هذا شيخ وعيدي حديث بيسكم الدبن وحيري هرتا نك الناقل بعد جورسنية ميو قصبي طلبات مس يدا رالي كوا هذا يدا رالي كوا وحيري هذا إذا كضاعته نين ناقة بهيرينه محو كل بيجي بهواي لكن هذا محل الله بين إذا كنا ربطان الله بين تيرالي كتير حيري قرمها قدروا من دلوقتي الحين سؤال بيجوا الحين هذه أباها هذول الله بيا ما يعرفاس كاسيتر ها ورال كان ها ويل كاجانا ها يا رب تاولي أبيه ولكن قبل ما نمرك مرك تاسو أشكال طبيعي خلوا ودوا القاطع قبل هذا يرحوا غير حناقان وحوليه طبعا علماء كمذا أرضنا وحيكون لي رجاليا إني جورسدان لكن وذا ده ما أرق بوري ننجبر لي سأرضي أجورنا إياه سيد سعيد ابنه سيد سعيد ابن مصيب وحلا جاي عباية دي واحد اسمه أرقنا وحلا جاي عباية إن هذا ماشي هذا مريم أنا أرقنا ركب بدنه أجوريه oo gabdhooda ardadoodii u guuriyay waan aragnay oo Soomaaliya Arab inta bale taasi way jirtaa laakiin ma laga yaabo adigu inaadan ahayn ardaygii gabadha lagu aamini lahayn inaad noqoto laga rabo horta adigan waqtiga marka qaarkood dadka kale oo inaad aragtaa laga yaabaa waxa gabadha lagu siin leeyahay ama ardaygii lagu aamini lahaa aadan noqon wali su'aasha lafteedu meesha waa ku jirtaa ee ardadii Saciid ibn Musayyib oo kala ahayd ma joogan hadaba wadaadada kaliya haysanine baashaan hoos ugu dhigno oo adkaan laakiin Sheekh Maxamed mid baan soo jeedin lahaa munaasabadan waalidiintii mushkilad baa haysata gabdhihiina mushkilad baa haysata wiilashii gurdoonkaana mushkilad baa haysata mushkiladda idinka wadaadada ee magaalada xallin kara والدكي ويل كان ما يقام با ويل كان ما ويل في عمه مسمو كراوي ما كان يقام gabadhiina guulkeedii meelay wiil fiican ka raadisa ma taqaan tamana fudud wiil walba inuu ogaada gabadhan iyo wanaageedii wiilkii laftiisa gabadh fiican buu rabaaye gabdhihi dhan magaalada isaga kamera ugu ma xirna niyada habboon sharaxay marka taa guddi sameeysan diiwaan gelina sameeysan dadka isku habboon iyo isku fiican inay isla doonataan xafiis u furtaan أريد أن بونان لاي بل لكن العلماء دي من تاسو نقطان منه على اللي نقدر يقول فرصة الشقاق صوبي مجاز حفيزك والله فوري ويلي قبض بفيبا لقى قاضي حفيزك لو كردي صار لو بحن شقالي صار لو بحن فيلاشا لو سمين قفل بنا مغيسيه ديتيلز كيسيه waxa uu yahay daadiisiya meesha la galin ninkii gurdoora markuu yimaado telefoonada baarta laga reebo bal dadkan arag baa la leeyahay gabadhana shuruudeeda laga qori wiilkana shuruudiisa ninkan shuruudiisa gabdhaha bidda soo yar dhaweynayay isna soo yar dhaweynayay takaawudi arqeer keemo leeyana tuqayda xataa shibirkii wala doonaa oo sameey kartaa barnaamijkii Sacuudiga ka sameeyay jiray farax al-uqla iyo kaleetiyo ana waa soo jeedin lahaa wuxuu yiri ka soo su'aashan kale wuxuu yiri meherka ma waxa magacaabaya gabadha aabaha gabadha dhalay mise qaadiga mise gabadha ayaa xaq u leh inay sheegato meherku waa heshiis ka guntama gabadha iyo ninka labada isguursanaya waxa xoolaha dalbanaya iska yeelanayna waa gabadha waxa lagu yeelanayo waa ninka xuquuq xoolaha la isku yeelanayo labadoodiina aynan aqdiya asal ahaan isla ogolaanin ma dhacaanba ma baa saxdaba
صادرت gabadhu iyadu ama cid ha wakiilata maayaan ay wakiilane waxay ku fiican tahay inay gabadhiyo ninku ka wada hadlaan oo waxay meher u yeelanaysaa isweydiiyaan saas way fiican tahay oo gorgortamaan waxa waa xaq la isku yeelanayee inta ay makari kare iga dhin iyo hoos iga dhig iyo marka dambe oon meel fiican ay isku soo ururiyaan afasal laakiin gabadha dalbashada leh ninkuna ogolaanshiye diidule طيب سؤال شكله وحده الشيخ وحان دغيستي عجلدادي حقوق الاولاد oo ku sheegtay inay reeban tahay in magacyada qaarkood lala baxo marka ka waran magacyada Soomaali sareeya caaliya horta waa carabi Soomaali ma aha gamaadiid janagale khaliil iyo wixii lamida magacyada horta anigu sareeya caaliya gamaadiid iyo wax diidaya garan maayo khaliilna culimada muslimiintu way la bixi jireen wax mushkilad la maaha janagala hadii uu saadaalin looga jeedo khaliil buu yiri kaafkaniga waxa ku daray hadii khaliil laga wadana dhibaato ma laha waxyadan carabteed arkaysaan in badan oo kamid ah hadii la idin macneeyo kuwa way ka sii qaab darayn هذا صمت قانون قتادة ليراد قتادة معنيه قدح وي علقمة دعر وي مركا عربتو مقعيدي باينو كلا دوون وعلقمة يا قتادة باين رفع عظيم ما هنه هدي قدح يو ميجاج يو جماديد يو مشكلات مرها علاض إنه نكان نيران يو نك حرب أي رهدان وي ninka inaga geedi aan niraano ninka muhaajir ay yiraahdaan way muhaajir waa un geedi ama kaynaan ama kunno waa muhaajir marka magacyadii baa inaga luqadaha kala duwan yihiin maahane magacu asalahan wuxuu ku xaraam noqdaa dhowr arrimood in adoon looga dhigo cid aan Allah ahayn abdi hebel la yiraahdo oo abdi intii loo bixiyo loo tiiriyo cid aan Allah ahayn laba ogola waxa soo dhan in la gaarsiiyo magac taskiyeynaya oo qofkani qof Ilaahay agtiisa ku khayr badan inuu yahay oo nabigu magacyada uu bedeli jiray barra gabdhihi la dhihi jiray Zaynab kuwa uu bedelay wuxuu yiri inna tuzakki nafsaha nafteeda taskiyeynaysa waxa kale oo banaaneen magacyada tilmaamaya akhlaaq xumada kuwa akhlaaq xumada tilmaamaya waa qayb badan kuwa magacyada jinsiga way in loo bixiyo iyo xubnaha taranka qof magac xubnaha taranka in loo dhigay lama ogola waxa kale oo loo ogoleen magacyada jaraa'imka iyo dambiga tuug in loo bixiyo koorinka tuug loo bixiyo tuug iyo zani inaga dawladaba la baxay magacyada qaarkood maamul goboleedyada dhan baa magacyada qaarkood la baxayo غرايب كميدا ويل يرنا لب دشاد لب بخيس زاني ولو يالو شرعي wuxuu galiyahay maaha qayb kale waxa kamid ah akhlaaq xumada magacyo gaalo John Michael iyo Joseph iyo David iyo in magacyadaas oo kale aad u bixiso ma laakiin hal ogaada magacyo waxa jira moodaysan magacyo gaalo ahayn sida dumarka Susan oo kale Susan waa magac Carabi ah وانا نوع geedaha dhirta baxday u baxay carafta kamida asalkiisi marka dunida muslimka la qaatay muslimiinta baagi dambe way iskaga tageen carabtii kristanka hayd baa ku hartay magacyadaas kadibna galbeedkii waxaas uga soo baxay Susan waa eray Carabi ah oo nabaad tilmaamaya marka magacyadu dumarka oo kale ta magacyo shahwa kicinaya naasakuusi magacyo la bixiyo naasakuusi de Carabi markii la nahaad way gabdha carab oo nahaad leeyahay arkaysan nahaad hadii la yiraahdo naas ku sooy marka magacyadaas oo kale lama ogola marka wuxuu kale sii wado wuxuu yiri hadii soo qof jooga wadan gaarad oo ku lafihiisa u cabsado magaciisi Mustafa ahaa
ma u bedeli karaa magac Soomaaliyeed adoon cabsanba magacaaga shakhsiga markasta waa bedeli kartaa adoon magacaaga shakhsiga aabbaha iyo ugaan loo goleyn magaca shakhsiga waad bedeli kartaa sida aad ku sheegtay muxaadaradaada siigada shareecada islaamka maxay ka qabtaa siigaysiga shahwada gacanta la isaga keeno waxay diinta ka qabtaa way siigaysigu waa shahwada gacanta la isaga keeno waa kutubta fuqahaada jalda amiira u yaqaanaan fajrida amiira taa ka yiraahdaan marka jalda amiira diinta maxay ka qabtaa haday tahay mamar misamar mid shaki kuma jiro akhafu min az-zina horta zina uu ka saalaya dambi waxa kastaba zina waa kaga saalaya taa khilaaf kama taagna culimadu waxay isku hayaan asalahan ma qismul mubahat ba misal qismul mahdhurat way khilaafkana waxa sabab u ah qawluhu ta'ala والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى ننكر شادية وراء ذلك لبضع وحانهين وحاسكي يدون إليها يانهين فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك ويعلمون وحي تفسير كذا يسكو هيان صارت خلافك ما وحا لغا هدلهاي فروج آيات وحي كهدليسا فمن ابتغى شيئا من الفروج وراء ذلك وراء ذلك كذا الشيء يوا فروج بيعيدو كهدليسا مثل فمن ابتغى وراء ذلك وقضاء الشهوة ودنه ولبضع أهين بي كهدليسا بمعنى شيء بالله قدريا وانا واحد اصوليين المقتضى ايو يقناوي وحبا قدرا فمن ابتغى قفك الراديه وراء ذلك وحاسكاغي يا دونتي الله وحو رادينيا محويه هدان نرانا ان قدرنو مفروج با لغا هدليي بان دهينايو فرجي بان قدرينا مسش قضاء الشهوة لقاها اللي يبان لنا هاي وقضاء الشهوة قدرنا فرج هذه اللي قدرنا وخاص كوبا ومسألة دي سيجيسي والتحريم كسوق رميس هذه قضاء الشهوة اللي قدرنا وكعام سنية هاي وسيجيسي وسوق ريا هل كان هو تصور الخلافك إن تقدير كان لا يسوق خلافات سبب كلا سبب كوليه هاي وحنا نشجع أصوليين تو طلبة العلم كانوا لا دليل هذا الكلام مقتضاها يقانا مقتضاه وهذا القدرا أو قرص حتفا أو لا قدريه سياق هذا الكلام معناها تمام كي سنة أوسن كم عرمين وحي أصوليين تسكوا يستان هدي مقتضى لا قدريه إرجع لا قدريه مع عموم بنقنا يا مس خصوص بنقنا يا ما لفظي عام سنة اللي هي كلام لا قدريه بس لفظي خاصا بلا قدريه ومثلا اصلا لا اسكو هيستو iyadana waxay farac ka sii tahay mas'ala kale ay kula gari marka dambe oo talibku markuu baarayo qaacida yiraahdaan ahlul ibratu bi awaa'il al asmaa'i am bi awaakhiriha ma waxa ugu yara magacu ku dhacaash takliifta sharcigu tahay mise waxa ugu badan ee uu ku dhaco misaal badan baa galo tahaarada masx raasi maxaa kaafinayo masx al khufayn maxaa ku filan iyo طلب الماء متيمم كي قدر كيبا كفلانيو قدر كو يربا ما كو بدن با مسائل ka khilaafkooda dhan ba qawaacidan saameynaya qolo waxay leeyihiin waxa ugu caamsan baa la qadari sababtoo ah muqtada marka la qadarayo umum ba fiican wuxuu ku fiican yahay ahkaamta shariicadu si tacmiimaamkeeda loo badiyo waxa ugu badan ay dawaahirta nusuusta soo gali karana loo gaarsiiyo maadaama juz'iyaadka iyo xadiithii badan yihiin kana raacina صادرت فمن ابتغى شيئا من قضاء الشهوة وي قالوا حين المي عموم خاص بالقدره صابته أصل كوا براءة وحن لقدر هي أحكامته كحرنتها كان غير والله با ككذب حي كبضن ومشكوك فيه وحن مشكوكه أصل كي يقينتي إباحة اللود من مايو
faman ibtagaa shay-an min alfuruuji wara'a dalika aan dhahaynaa halkaa waxaa ka dhalatay aayaddan horta istimnuhu taxriimkiisu wuu soo galay ninka kule cumuum buu qadaray ninka kule ma soo gelinna khusuus buu qadaray murankuna waa muran ijtihaadi ee nas maaha laakiin ragga hadlaya baa nina aada u adadkaynoo sidii nas sariixa ka dhigi nina hadalka fududayn waxaan uga jeedaa maadaama su-aashan ay badan tahay wadaadada aaraadooduna marar badan aada u kala duwanaato ragga mashaayikha iyo talabatulcilmi wixii warka igu gaaro inay ma'khadka marka hore ikhtiyaarkaaga inaad xadido weeye masaa'ilka awaa'il ilasmaa iyo awaakhiriha maxaa raajixa mid inaad doorato weeye bidaliilihi muqtadaha ma cumuum baa mise khusuus baa la qadaraana inaad meel kusoo xirta weeye markaa kadib baa aayaddan dooda iyo muranka laysu iman aayaddan keliyana ma ogaada xadiidkii laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaata masaajid nafsuhu mushkiladan oo kaleetaa ka jirta laa tushadu rixaalu ilaa masjidin ilaa ilaa hadihi alaaati baan dhahaynaa miyaa saa haddaan nidhaano on shaygii khaaskaa qadaro masaajid baa laga hadlaya nidhaano xadiidku daliilu ma aha fi nahyi can shadi rixaali ila almaqaabiri xadiidka ma soo gelayaan haddaan nidhaano ilaa cibaadatin tacabud maka fii makaanin ilaa tacabudin fii makaanin ilaa hadihi alaaana qubuurtii waa soo gelinaynaa nisaaca xadiidkani shadu rixaali ila almaqaabiri daliil mau yahayna waa isla nafsu lmas'ala usoo noqonaya marka waxaan uga jeedaa ninkii inuu wax taxriiriya raba masaa'ilka aha soo qarira calaa kulli xaal masaladu saa darteed bay masale khilaafiya u noqotay khilaaf muctabaraana ka jira ma taxriim bay geli mise ma gelaysa aayaddan ma soo gelaysa mise ma soo gelaysa wey waxaan intaa kadib talabada u diray kitaab waxaa aada u faahfaahiyey ninka la yihahdo maxamed ibn cali shawkani raximah allahu tacala kitaabkiisa buluuq lmunaa fii xukmi listimna kitaab dhan buu ka qoray aqwaasha culammada iyo aathaarta iyo min cahdi saxaabaana la ysku haystaa saa darteed maadaama khilaafkiisa ijtihaadi yahay laa shaka annahu akhafu min azina hadday daruuro kugu timaado aada bahashii aada uga baqdo qowlka marjuuxa ah masaa'ilkaas oo kaleetaa lagu intifaacaa wallahu aclam su-aasha xigta su-aalihii ugu dheerdheeraaday aan soo gaabiyo wuxuu uhi waxaan rabaa inaad ii sheegto waxaan la joogaa abtigay wuxuuna cabbaa qamri ma iskaga tagaa horta abtiga iyo dadka kaleba inta cusaada muslimiinta horta allaha soo hanuuniyo ilaahina subxaana wa tacaala xaqa ha garansiiyo dadku qofu maalin buu xaqa gartaayo in badan oo naga mida waxay iska ahayeen kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum iyagana allah soo hanuuniyo adiga inta aadan ka tegin laba arrimood samee ilaahayna u bari awqaadda ijaabada ilaahay waxaan inuu ka qabto ilaahay toobada iyo hanuunka waafajiyo adiga lafahaaga ama cidda kaleed u adeegsan kartana ba horta wacdi iyo waano ku day taa hadday wax tari weydo laba mid baad noqon baasha hijrada iyo ka tagitaankii mashruucun ligayrihi weeye hadba masaalixda iyo mafaasideeda ay ku xiran tahay inaad uga baqaysaba naftaadii inuu ku galaafto marka dambe ku geliyo haddaad ka baqaysana isaga carab haddaad joogitaankaaga aad sii joogta maalinun aad ku wada oo ku yar wadaayo wax kaa maqlaa aad ka raja qabtana waxaa raajixa inaad la sii joogto haddaadan ka baqayn inuu ku saameeyo inuu wax kaa qaatana aadan raje ka qabinna ida stawa طarafaani fa min almubaaxi ka tegitaanka iyo joogitaankaba laasiyama haddii aad u baahan tahayoo waxaan la joogayoo wax ka cunaaye meel kalood aadan helaynin gurigan aadan xaaraan ka cunaynin waa iska joogi kartaa islamic teaching baan sameeyaa qaybaha finalka ah afarta qaarkeed baan akhriyi kari waayey family planningku ama ilmaha la kala fogeeyo dadka dhalmada ilmaha ay kala fogeeyaan horta masaladani lafteedu masale ay waxyaabo badan hadheeyaan weeye maadaama ay soo noqnoqotay jawaanibteedan waxoogay bidhaaminayaan
masaladan horta usuul baa xukumaysa. asalka koobaadi ilma in la dhalo ma min furuud al-acyaan ba mise waa min furuud al-kifaayaat. dadka mawaajib ay ku tahay qof waliba ilma inuu dhalo oo dhali kara asalku waa maya, waa min furuud al-kifaayaati. sida zawaajka iyo guurka laftiisuba waa furuud al-kifaayaat oo ummadda dad guursada waa in laga helaa, laakiin qof kastaba inuu guursado sida salaadii furuud al-acyaankii maaha guurku. ilmaha dhalitaankiisuna furuud al-acyaan maaha, waa furuud al-kifaayaat. ummadda qayb guursata oo wax dhasha oo jiritaankeedii in laga helo way, laakiin qof kasta ilmaha dhala waajib cayniya maaha. masalada horta xukunka saamayn bay ku leedahay. masalada labaad, ilmaha marka la kala fogeynayo waa ficil dadku ay samaynayaan, afcaashuna asbaab bay yeelataa, sabab baa ku xambaaraya qofkan. hadba xukunku wuxuu qaadanayaa sababta. hadday sababtu tahay sidii carruurta waagii hore loo diri jiray loo aasi jiray risiq rakacar iyo carruur badan ma biiri kartid, carruurtan badanna kharashkooda kama bixi kartid, ilmaha iska yaree masaladu hadday tahay ma bannaana. sababtaan bannaanaynna waxaa weeye caqiida xumay tilmaamaysaa, oo wixii gaaladii hore ilmaha ay u diri jireen khashyata imlaaqin, faqriga gaajo ka cabsigeed ilmaha loo diri jiray qur-aanku ku dhaleeceeyey, oo ilaahay arsaaqda uu qoray iyo qawaaniintii sharcigu uu ogolaaday ka baxsan wey. haddii ay arrintu tahay sababtaa waxaan ahayn oo ah carruurtiina waa isu dhodhowaadeen, hooyadiina wuu dhibay uurkii isa saarka ahaa, waa matlab la ogolyahay sharcigu in la yar kala durjiyo, waayo hooyadu waa wax la hubo wey, ilmuhuna waa midho geed saaran wey. hooyada nafteeda ilmihii caloosha ku jiray baaba hadday khatar gasho lasoo tuuri karaa, iyada hadday khatar rasmiga gasho. in la yidhaahdo ilmo yuusan dhalanin oo family planning ha la sameeyo, 2 sano ilmuhu ha kala weynaadaan si hooyadu ilmahan markay dhashay kadib ay u soo kabato, ay u soo xoogaysato, dhiiggeedii iyo taqwadeedii iyo xooggeedii quwadeedii u soo noqotay, wax xaraj iyo dhib ama laha. hadday hooyada xanuunsan tahay oo lagu soo qalayba, hooyinka qaar baa lagu qalay, talooyin dhakhaatiirtu waxay bixiyaan in 2 sano inaynan uur qaadin oo inta nabarkii gudaha si fiican uga bogsanaya, haddii kale uu qarxi karaa. culayska uurkee soo fulayso waan aad u bogsanin waa dilaaci karaa, nolosheedana khatar waa gelin karaa. dhakhtar lagu aaminsan yahay hadduu yidhaahdo waa la samayn karaa. family planning-kaasi kani ama ha la isticmaalo, inta ugu badanaan arkay hadda 3 nooc baa la isticmaalaa. ragga dhakhaatiirta ee laga yaabo inay qaar joogaan baa iga xogaalsan. qayb waxaa la isticmaalaa waxyaabo meelahan la geliyo, ama wax la geliya ama irbad lagu dhuftaa oo dawo ahaan ama kiniin la cunaa. qayb dawooyin baa la isticmaalaa. qaybna wax la yidhahdaa faraanti iyo wax lamid ah la isticmaalaa. miyaa taqaanaan? macnaa minkaa la xiraa, waxa minka lagu xiray faraanti iyo wax saasay yidhaahdaan. minkii ay shahwadu geli lahayd baa la xirayaa. taa mushkilad bay yeelatahay, marar buu dusheeda ku abuurmaa minka bannaankiisa, waana khatar haddii ku abuurmo. mid saddexaadna waa la sameeyaayo diicin jir baa la isticmaalaa, condoms bay isticmaalaan. masaa'ilka calaa kulli xaal ninkii reerkiisii inuu la noolaado, inay ur qaadana uu ka warwareegana xilligii nabiga dhacday sala allahu alayh wasalam. kaanuu yacziluuna xadiidu alcazli soo ma taqaanaa? haweenkii u tegayaa xilligii biyaha marka la gaaruu bannaan ku daadinayaa. nabiguna nahyi sariixa kama reebin. jaabir iyo abu saciida nin labaadan u malaynayana waxay dhaheen saxiixa sida ku qoran, kunnaa naczilu wa rasuulullaahi bayna adhurina waalqur'aanu yanzilu. nabigoo nala joogo qur-aanku degayaan samayn jiroo bannaanka shahwada ku daadin jiray. walaw kaana mima yunhaa canhu lanahaana canhu lqur'aan. hadday xaaraan tahayna waa nalaga reebi lahaa. raggaasaa riwaayaadka qaarkood waxay caddeeyeen inaxaan ka baqaynay uur inay qaadaan. marka islaantii wuu xoogay la joogayaa, markay xilligii biyaha shahwadu joogtuu bannaanka ku daadinayaa. nabiguna wuxuu yidhi waxba ha isku dhibina, naf ilaahi hadduu damco inuu abuuro waa una abuurmi, siba wax kaaga fakan.
سمو حكاغا تفقي سعد نبي وغما ريبين صلى الله عليه وسلم صادرتن inay uur qaaday ka baqayeen biyihina banaanka ay ku daadinayeen haduu caag cincir isagoo inay uur qaada ka baqaya uu ku shubay in caag cincirka wax tahriim oo gaar ah uu keeni mara caag cincirka shaqo qanaso ki magaca xabaa dadkaas ku diray Allah aalam subhanaka allah walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بسم الله سؤاله وينولني سؤاله بيننا سؤالين وإضافينينا حين المعاهد بركوضة أي أرضي إن شيء دران وحلا سو قرا وحالي را waxa ka soo sheekaysa muslim iyo kaafir ila kaafirna hadihin gaalna hadihin labada in shaka soo qor ila qoraalkaada kaafir waa noocan gaal waa noocan inaadan dhihin marka xukunkeeda maxay noqon sidee loo qoriyo الحمد لله لابو ما أرضيك هدو حيالات يقرب اللي هو أرضي اللي امتحانيه يسوي حيالات وما فر حيالات هدو يقربه مسلم يا غير مسلم ده غير مسلم تساوي قال كافر اسمع نان مسلم وهي ايكوال تاعي كافر مرقا دير لو يري قال وي قال هدهن غير المسلم ده دي مرضى امتحان انتهي امتحان كنا وراق دي لغا سوغيو هذا سو قرتنا aad ku dhici taaba iska gasho midna waxaan dhihi lahaa dadka macaahida ama barnaamijta dadka u diraya eraygani waa ismi quraanka iyo diinta dhan ku soo arooray diintii ahkaamtii ilaahi asmaada uu siiyay inaad ka carartana waxba ku tarimayso sideedabana wixii diimaha ah erayga siduu yahay baa loogu dhaqmaa aqli iyo qaanuun iyo sharci midna ku diidaya malaha ee diinta waxa uu cararta ma yaalo waxa dhici karta hay'adahan gaalada ah inay waxoogay biil iyo fan ku siyaano iyagoo ay ku diidan yihiin ama warbaahinta caalamka qaar kamid ah oo kaafir dhihi maayo wadaad ka yiraahdeen laakiin almuslim wa ghayru almuslimiin aan dhihi inaad ku taasurtayna waa dhici kara haddii uu eraygan laga fiican yahay ilaahay quraanka kuma badiyeen eraygu haboon ee la yiraahdo waaniga ilaahay u doortay quraankana ku badiyay waxana waa idin sheegay waa idin ku gabagabeyn nimanka gaalada aad arkaysaan halka guntooda anu waan tagay intooda badan bariga fogna waa tago ilaa Australia New Zealand Yurubna ma wadanaan marin waa yarya hal wax baan idin sheegay wax ka fiican waxa dhabtay diintaada inaad ku adkaysato tiraada waa diinteeda waana sax wax ka fiican lama arko diintii waa lagu la yaqaanaa kan hadaad si u yar gedisato kaad gedisatayna waa lagu la garan dhuumaal dhawar ku muuqda ma fiicna waxa jooga rag professoro 80 jir ah oo 60 sano علوم الشريعة الإسلامية أخرسنا يقرني تخصص فقهي يعني تخصص حديثي يعني تخصص عقيدية تخصص تفسير هاي بتشوفه وأنت كتب تفاسير يا مفسرين كرك كذا ولا آخرين مسلم ما هو وقال ننر البخاري يا مسلم يا أسانيد دودي علل القضية شروح القضية سوح قددين أضيابي لكن المسلم هاي بتشوفه كحاجات كقبح سنة دي قريبا لدى بوريجي نيات كده وريكت waxaa asala qanaaca taama diinta ku qab diintiinu waxaasay qabtaa ha maxay saa u tiri idiyada saxan say ku saxan tahay warnimada wax si ka yahay masalada laga doodaya ha noqoto marka ani si waxiga ma aha iyo ka yahay laakiin ha ka doodin diintiinu saa maxay u tiri maxay miyay saxan tahay miyay saxan tahay inaad ka doontaan waa khalad waxa saxa inaad ka doontaan way saxan tahay adaa wax si ka yahay وعقلي فوررا يسوي فوررا هل كاسا مرنكو waxay noqon marka aqligaygu ma foorara iyo aqligaygu foorara waagora muslimiintu difaac bay ku jireen laakiin rakhayr Allah siiye qaladad halaadaan laakiin wax badan kitaabada dacwada u qabtay baa jira Abul Ali al-Mawdudi iyo Hasan al-Nadawi Sayyid Qutbi marxalad waxay ka buureen ay difaac ku jireen weerar bay isu bedeleen waxay wareerde islaamku ma maalin walba shubha la keenay difaacayna inta ay naga deysaan mabaadiidan reer galbeedka iyo markiski aan weerarno ceebahooda aan banaanka soo dhigno difaaca galaan iyagu markaas waxay dhaheen markisyada ceebaheedii waa kan
waa hanti wadaagga hanti goosadka reer galbeedka waa ka ceebihiisu waa ka dhaqankiinni waa ta diintiinni waxaan ka jawaaba nimankii jawaaba lahaa baa iyagii jawaab galay kan may jawaab ma hayno oo waxaad keenteen fiiriya weerarkii wuxuu isu bedelay difaac inay noqdaan adiga weligaa ninka difaacaya ninka weerarka ninka difaaca jilicsan oo marba la durkiyaa markuu ninku wax kuu keeno diintiinu naaga badan bay banaysay weli sax weeyadhe saas haddana ku jirtaa eniyo hadduu nin ragaya adaa raganimadaada wax ku jiraa waan u malayna iskuma dayi kartid miyaa dheh maya saa ugama jeedo warniyo haddaadan waxaynin odan adigu ka bixi karin oo raganimadaadi hoos u dhacday raganimadoodu tahay daa waxbaa kuu dhiman maya aniga saa kama wado xuquuqdii haweenka meel looga dhacaya adiga haweenku markay doodaan hal la arkay adu haween maa tahay halkaas meel ha marto kadib wuxuu ku yidhi diintiinu addoonsi bay bannaysay waxaa tidhahdaa waa sax ninkii gaal ahee la soo qabtay jihaad lagu soo qabtay in la addoonsado waa sida ugu fiicane maxaa dhiba may bini aadan baa la addoonsanaya haa adaa wax si kaa yahay in la addoonsado way fiican tahay in la addoonsadaa fiicane adaan fahmayni waa ku doodii annagoo gaalada la joogna baan dhihi jirnay sidaasaa sax ah waa see ku saxan tahay dadka ilaahay baa abuurtay addoommuu ka dhigtay iyo caabuduu yidhi waa yahay bay dhaheen min baa yidhi maya anin ma caabudayo bannaankaaga iska joog baa layidhi ma yeeli maayo dadkuna ilaahay caabudi maayaan qorigu soo qaatay aanu caabudi maayo ilaahay dadka inay caabudaan ogolaan maayo dhimashaan ka xigaa buu yidhi ninkii baa la qabtay kuwii addoonnimada ilaahay ogolaa addoon in looga dhiga way ku fiican tahay khaayinka najiska way ku fiican tahay oo lagu ciqaabo idinkaba dawladuhu markii la isdagaala dawladdaad ka adkaateen aad qabataan dhul beerahaad ku falataan annaga beerahaan aan ku falana maxaa noo diidayo oo addoonsigii ood magac kale u samayseena maxaabiista marka la xirta waa lagu shaqaystaayo waxbay dhaqaan oo waxbay sameeyaan sooma saasoo kaleeta wey dagaal baabaan ku soo qabanay ilaahay inaan caabudno uu noo diidan yahay macnaa waxaan uga jeedaa yaqiin haabita yeelo diintu waxay tirisay u tiri magacyadeedii iyo axkaamteedii waa sax ciddii wax ka keenta iyadaa maskaxdeeda wax si ka yahay isagaa wax garanaynin isagaa caqli dhiman isagaa dan kale leh ujeeddo kaluu leeyahay mardabaad rabtaa iyo qurun baad wadaa marka weerar ku bilowdo ma inuu isdifaacuu geli halka hore uu ka degi markaa weerarka un kuwad isagaa dib u gurasho u guranayo gebi ha ka dhacaduu rabo gidaal madaxa ku dhufto halkaasaa ku diinaya subxaanaka allah waxamdiga ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk